كاتو أيها الأحبة درسيغان ولا له قونديين إنه عوضحه الإسلام منصور لا محالة له إسلام هو قولي سنية مرنكم تشيرو إن لو عمل فله وسيدي وقولي سان لها لغا شقيانا وواجب دينية عنوانكو انتا صوت المامية دوني دا وحان ognahay بني آدم كوان نولها انت بدن كفكرة مستقبلك maxay noqon وان نولها أخطيده اكو تلقلا مستقبلك وحو نقون دونه انو صويري كرو إلهينا سبحانه وتعالى القرآن كوحو كنت الماما يا مستقبلك حقيقة دي سينو يسوون وقيهاي قل لا يعلم الغيب من في السماء قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلهي وحليه سبحانه وتعالى مأوغا عرئي الدل وحشوغا غيبك مأوغا ألمو يعني سبحانه وتعالى حقيقة هن إلهي ينبوك لكن بني آدم قوة الصادالية سقو ساداشي سكو صلينية تقتدي هراء ما تاريخ دي هراء يسيدي وحهان شرين سقو كو صلينية هاد ظروف تتاقن السيدة أي تهي أيو مركا كالصادالية مستقبل كنا السيدو كان دونه dadka wax saadaaliya marka dadna waa dad khibro u leh oo daraasaad badan ama cilmi baadhis badan intay sameeyaan mustaqbalku uu muuqdo ila xaddin ma sawiran kara sida wax noqon karaan dadka badhna taariikh hore iyo waxba toona ma eegaane waaqaca marka ama laxdada lagu nool yahay baa intay u muuqatay moodaan inay dunidu madoobaatay ومشاكل كامركا هستيا وحاوم با انتو كبطو ايوم بيسيدا هذا الدنيا وحبا اسبدلي ما يعني صوت هل كان لقاري هل كان لقاري نوع من اليأس ايا كدعا مستقبل كاسي ايجستيسا مسلمين تو اقويهم كود واباريان وحبدا باني ايجيان ويفتيمينيان عكسي جيدنا قالدنا واباريان بحوث علمية هي دراسات أكاديمية علم بارسية نبأة خبرات نبأة ومال إيه مسكح بقى يجيلين أيام بيكون بارانو إيجان مستقبل كمسلم كصور نغنية حنذكر ناقوي هنبدأ إليه وحي رميسانيا لا محالة إنه إسلام كصور نغنية سبب بدن تردد لكن دي اللي اسمدي بابي رميسيين ما الله دبديك كرا ما لو تنسانو كسون نقول ما كنتن ما بقول ما لوا بقول هدينو لوا بقول قارسين كرنا دي مدينو هاي سنويا مركا iyagu baxsiga waxay u sameynayaan inay ogaadaan niqaad dacfigaaga iyo niqaad meelaha xoogaagu ku jiro iyo meelaha dacfigaagu ku jiro سأوجد عدة عدوها هي وحي سكوديسا بوينتس كمان نقطتها ضعف كأنا يني بونبوني سو حوتشيسو بلاري سو تربدي سو ما لها قوة نسي دي يحدد لها هيدا ويرين لها هيدا نيتيجابيس مسلم كا وحلار كياه بري قلبتونا مربان reer galbeed islaamnimo cadownimo taariikhi iyo hore ka soo dhaxayso waxay rabaan inay carqaladeeyaan intay carqaladeyn karaan bariga soo socdaana kama roona oo China iyo groupkiis kuwanaba ahlu kitaab labada kuwanaba waxyaabaha qaarkood inala wadaaga laakiin China iyo gruubadooduna waa laga yaabaa duruufaadka qaarkood masaalixdu inay soo dhacdo لكن كمبدأ هنوي كفوقي عالم الإسلام دتك حكمانه
labadaaba inay ka sii fog yihiin baaba laga yaabaa oo iyaguna dantooda inay u arkayaan islaamnimadaasi inaanay ku soo noqonin waayo ninka siyaasiga ahi waxa maslaxadiisa ugu jirta lagama fujiyo had iyo goor maslaxad malaa wuxuu arkayaa sida tan inuu dadka gacan bira ku hayn karo qofka caadiga ahi markuu eego wadciga muslimiintu ay ku jiraan oo ah dhaqaalahoodu inuu dambeeyo siyaasadoodu inuu dambeeyo maalku in laga maal badan yahay hubka in laga hub badan yahay niyad badan baa dadka qaar ku abuurma laakiin dhan kale marka la eego waa ummadda ugu da'yaree dunida ku nool that means Soomaali maanta haddaynu eegno waxa laga yaabaa boqolkiiba 70 inay 30 jir ka yarta that means waa xoog soo socda masaajidka imika haddaan sidaa u eego waa cirro laba qof iyo laba laga yaabaa inaan arko macnaheedu waxa weeyaan waa ummad dhalinyaro ah Soomaaliya qurana maahe waa caalamul-islaam oo dhan baa noocaasiya cagsiga haddaynu galbeed iyo bariba eegno waa dawlado gabgaboobay iyo dad gabgaboobay iyo maskax gabowday da'yartoodu da'weyntaa ka badan inta benshanka gelaysa ayaa ka badan inta soo gelaysa shaqada that's why in badan qaxoonti u qaataan qaxoontigani waxa la rabaa in lagu buuxiyo meeshii dadkii shaqada gelayay waayo dadka ka sii baxaya benshanka noqonaya ka badan da'yarta shaqada soo gelaysa idan haddii xagga bini aadamka laga eego caalamul-islaami waa dhalinyaro waa dad xooggan oo mustaqbal loo soo socda haddii laga eego dhulkay degan yihiin waa dhulka dunidaba isku xidha cidda dhulkaa xukunta dunida xukunta waxay yidhahdaan dunidu badaha dunida isku xidha cidda xukunta 5-6 kanaale dunida isku xidha mid mooyaane inta kale muslim buu ku yaalaa Panama Canal oo labada Maraykan dhexdooda ah ayuun baan gacanta muslimka ku jirin ama inta kale waa Bab al-Mandab waa Canal Suez waa Jabal al-Tariq waa Basfar ama marma labada uu leeyahay Turkigu waa Hormuz kan Iran iyo Oman iyo inta u dhaxaysa waxa kanaal dunida isku xidha gacanta muslimku ku jira waa wasad ad-dunya Maraykan intaas xoog ku jooga si uu maamuli kariyo Ingiriis Turkiga intaasay heshiis kula galeen 100 sanadood khilaafadii Uthmaaniga markii la ridayay heshiisyadii la galay waxa kamid ah 100 sano ee soo socda kanaaladaas inaanu iyagu lahayn free in lagu mari karo 2023 ayay ku dhan yihiin 100 sanadood 1923 ayuu ahaa heshiisku 100 sanadood waa 23 markay gaadho ayuu dhamaanaya wixii ka dambeeyay gacanta Turkiga ku wareegaya gacanta Turkiga hadduu ku wareego Russia dunida meel ay kala xidhiidha male Turkiga inay marto mooyaane biyo kululba male iyo wax xagaa ka xigo oo dhame si kale haddaynu u tilmaamno waxay degan yihiin meel Ilaahay dhigay energy-ga dunida shidaalka dunidana 70-80 wax ku dhow waxa Ilaahay hoos dhigay inta muslimku dego khaasatan iyo meelaha laga soo bilaabo ilaa iyo inta muslimku dego ayaa shidaalka energy-ga dunida hoos yaala caalamul-islaami wuxuu ka mid yahay wadannada aan khaam maadda khaama loo soo dhoofinin ee maadada khaamka ee wadannadooda taalla wax kastaba inay helayaan anything loo baahan yahay dhulkoodu inuu leeyahay oo tasniic ama industry uu u baahan yahay haddii waddanku dhalinyaro uu yahay haddii mowqicu ku dhaca uu yahay mowqaca dunida maamula haddii energy-ga dunidu gacantooda ku jiro hadday maadada khaamka ay helayaan iyagu haystaan waxa ka dhiman oo kaliya ciddii isku hagaajin lahayd الحنكة السياسية قائد كيلها صاحب الرسالة متكمدة قرى أقويها كرر البيت كوحوليه وحقرة نمكن بولي وين إنه حق إسقى إلى لنا
waayo waxa qure u dhimani waa salaaxdiin cusub oo soo baxa buu leeyahay nin risaalana sita xanaka siyaasiyana leh mabaadi'na rumaysan en maamulna garan kara iyo si dad loo hogaamiyo caalamul islaami intaasaa ka dhiman risaalo daa'ima bay ay tilmaamayaan oo aan marnaba isbedelina way haystaan dadka kale kutubtoodii way qaldantay towraaddii rasmiga ahayd ma taallo injiilkii rasmiga ahaa ma yaallo bale maanta waxay maraysaa xataa afka markay noqoto dowlado waaweyn oo dunida ka mida baa tijaabinaya hadda arkiifyadooda rasmiga in af carabi lagu qoro waayo af carabigu waa afka qura aan isbedelin af carabigu 1200 sannadood buu sidii siiyey yani ninka luqa carbeed maanta bartay ashcaar aljaahiliya iyadoo loo fasirin buu akhrinaya waa carabiga habuu ku qorayay kitaabka quraanka ah ee carabiga habuu ku qorayay laakiin ingiriis oo luqadiisu dunida ugu xoog badantay Shakespeare wuxuu qoray in loo tarjumo modern Englishka mooyaane in yar ba akhriyi karta waa 600 sannadood ka hor 600 sannadood ka hor wixii la qoray dee ingiriisiba 600 sannadood meelahaas u jira ay ka horeeyay Germanic languages ku ka tirsanaa yani Latin language buu ahaa waxaan uga dan leeyahay risaaladooduna waa kayd yaallo sidiisii u yaallo cid ku dhaqantoon u baahan aan marnaba taxriif gelin aan marnaba lumin ilaahayna uu quraankiisa ku sheegay inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidun ana soo dajiyay baa ilaahay ilaana ilaalinaya ilaahay wuxuu u ilaaliyay xataa afku ku qoray in rabbi dhowro culamadii muslimiinta hore buxuuftay samaysay idan luqada carbeed waa tii nabi maxamed ku hadli jiray calayhi salaatu wasalaam waa tii abu jahl ku hadli jiray iyo kuwii ka horeeyay waa tii cantara uu ku gabiyay waa tii maxay imraa'ul qays uu gabayada ku tirinayay gabayga imraa'ul qays baa imka inta la akhriyo caadi loo fasiraya oo aan ishkaal ku jirin si caadi loo garanaya wixii sababi lahaa waxay leeyihiin dadka kale markaa waxay haystaan xadaaro qadiima waa mar labaad bay leeyihiin taariikh bay leeyihiin umamku taariikhda kama soo hadhaan haddaad taariikh hore leedahay waad hibanaysaa inaad soo noolayn karto haddaanad se taariikh lahayna daba go-an tahay ma jiro aabbayaal hore oo dib ugu noqotaa islaamku taariikh buu leeyahay tilmaamaysaa dunida tan dhowr boqoloo sannadood ama 1000 sannadood inuu keligii hogaaminayay oo dunida number 1 u ahaa hadday cilmi tahay hadday jaamacad tahay hadday dhaqaale tahay hadday everything wax kasta oo la eego iyagu ahaayeen ibn david waxaan tilmaamayay clips by waa nin gaaleed oo qoraayahana oo taariikh cilmi ka warama wuxuu lahaa quruun alwusta 130 kii caalime dunida joogay 120 baa dunida muslimka ka yimi buu leeyahay adduunka kale oo dhami 10 buu lahaa yurub oo dhami 4 bay lahayd tamacnaheedu waxa weeyaan waa dad taariikh iyo xadaaro leh soo jireena oo sababi karta inay dib u soo nooleeyaan intaa waxaan ku daraynaa haddaad taariikhda daraasayso ilaahay wuxuu leeyahay watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas watilka alayaam nudaawiluhaa bayna annaas bini aadamka ilaahay waa u kala bedbedelayaa nolosha oo ma jirto ummad weligeed jab loo qoray ummad weligeed guul u qorantayna ma jirto laakiin aadanuhu waa qori isu dhiib iyo calan isu dhiibkaasoo kolba qola xoog badata bale haddaad taariikhdii nebi maxamed ku noqoto calayhi salaatu wasalaam iyo islaamka mar buu nebi maxamed keli ahaa dunidoo dhammina ka soo horjeedo qof qura qiyaas oo adduunka oo dhammi ka soo horjeedo mar buu la'aa cid hoysa man yu'wini wariya ay hoynaya mar buu lahaa oo aan ilaahay kelmadiisa sheega oo taarikhyahanada qaarkood tilmaamaan 15 qabiil inuu isu soo bandhigo 15 kuma diideen ilaahay faraj wuxuu uga furay dhalinyaro ansaar inay aqbasho qaadato inay yimaadaan oo islaamka rumeeyaan oo bay'a al-aqaba lula iyo bay'a al-aqaba thaniya la galaan oo dabeetana yidhaahdaan annaga hiliyo hooba ku siinayna noo kaalay oo carab oo dhan wuxuu ka waayay dhalinyarada yar uu ka helay uu xoogaystay oo
dagaalkii koowaad ee lagu soo qaaday Beder uu guulaystay kii labaad buu haddana jabay oo laga xoog batay kii ku xigay baa Khandaq oo haddana uu guulaystay kii ku xigay buu haddana marna jabay marna Hunayn يعني تاريخ بني آدمكو لكن إلهي وحلي والعاقبة للمتقين عربت الدنبا وحا إسكاله كو إلهي سبحانه وتعالى كعب صدا مركا وحن لنا هاي كو أدونك كاني إلهي بوقع عنتي سورة مركو هركو جرا تار رميصو ما أنت الدنيا در قلبيت بهو كهمية عدا بوي أرى كدبط هذا ما جرته لكن هذا واحد صدق سنة كهر دنيا الدولة وين وكله شوع اللي يرادو ينقيبته هذا كتليه جري لبس سنة جده هاد بشوعيد بالدنيا اللواي لبس سنة جده هاد أي ما ينقدر سيدي تصبح لفوري داته دولة كده ما يساعد عادي خير قلبي ما أنت ووجي ينو دالي لأن يردو دي باللونسان أخلاقياتك كلمين dadkoodii xumxumaaba kor soo maraya dhaqaalahoodii baa sii burburaya dhashoodii baa sii yaraanaysa wadannada qaarkood 1.25 bay marayaan that means boqolka qoys labada boqol qof ka kooban boqol nin iyo boqol gabdhoodii dadkii bedeli lahaa ma dhalaan 125 qof bay dhalaan that means tirada waddanka sii yaraanaysa Soomaaliya 30 sano ka hor intay leekay dadku deni walba awowga soddon sano ka hor awowga intuu dhalay misay maanta say misuuyi waxaad garan kartaa Soomaaliyiinta intay badatay waa inta laga yaabaa awowgay soddon sano ka hor ama 40 sano ka hor haddaan tiriyo wax gacanta lagu tiriyo inuu ahaa maantana waxa laga yaabaa inay boqolaaliyiin nin walba Soomaaliyeedna waa sidaa tan yani intaas soo jeer baa laba laamay iyana waxa laga yaabaa inay tiradu intii awowgii ahaa ka yaraatay 40 sano ka hor awowgii intii uu dhalay ku tirsanaysay maanta inta ku tirsatay inay ka sii yartay idan waa dad gaboobay oo tiradoodu sii yaraatay oo dhalintoodu sii baaba'ayso oo dhaqaale burburna ku socdo oo xataa unity-goodii uu hadda bilaabmay inuu dib u gilgilmo Yurub oo tan sii kala googo'aysa Ingiriis ka baxay tii kale wali waa isku oodan tahay ilaahay balaayooyin kala buu keeno corona iyo wax kala soo baxay dimuqraadiyadii dunida loogu bushaareynayay waa taale ninna ictiraafi maayo tii Afrikaanku kale imka waa uun ka askari yar tahay sidii baa la isu hayaa waxba kama jiraan ana madaxweynaha in la soo taagan yahay systemku ma aha system fudud oo horta habeen iyo maalin dumaya maaha saamaha laakiin waxaynu tilmaamaynaa نقاط الضعف جينا بلابمينا موقضان ماليه اللي دشدو كتشري ويصاب بيريان فالي يسكو دي يقانين قيم كي هيين وصيلو ميا حتى قيم كي دولة نماء لهايين يصيلو ميا دينا يقول لمان معناه ما هنا دادو حوغي ستي هذا نكسي اللي ده توصل هالكيوم عدو واجه هبا يادو ما تقوليسن دي هذا هذا wax noqotaad guuleysanaysa hada waxa leena kow horta weyn rumayna ilaahayn dunidu gacantiisa ku jirto aqeedadaas waa inaanay dadka ka lumin qul illahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha ilahu dunidana da maamula cid kula maamusho ada mulkiga siiya cidda doonto وتنزع الملك ممن تشاء أدا كسيب با إلهي قرآن كنت المامية تنزع أدا كسيب بغرتو يضع عدة دونته وتعز من تشاء وتذل من تشاء أدا إلهي وعزيز كدقون ولا يشرف عدة دونته عدة دونتنا أدا دلية بيدك الخير قعنت هذا دي وحولي بكو شيران إنك على كل شيء قدير وحو البناء أداء وده إذن بيده الأمر كله إلهي قعنتي سايا نلشور دمي كتشرته وحين لأنه مركا لقيمين يا مستقبلك هذا التاريخ نقطة تاريخ ده كان يواليه يوهيك سده
hadday noqoto waaqaca maanta yaalla waxaan leenahay waa waaqac sheegaya ummad dhallinyaro ah oo waddankii ilaahay dunida ka doortay degan oo kanaaliskii dunidao dhan iyaga gacantooda uu ku jiro oo dhaqaaliya wixii waddanku u baahanaa ilaahay meeshooda ku sameeyo ku abuuray oo u baahan isku habayn damba uun yacni waxii ummadi ay kor ugu noqon lahayd oo dhamme agtooda waa taallaa intaa waxaa dheer mubashiraadka xagga rabbi ka yimi oo nusuus qur'aanah iyo xadiidah oo ilaahay soo dejiyey oo tilmaamaya inay ummadda tani dib u guulaysan doonto iyana waa taallaa ilaahay baa wuxuu leeyay wacada allahu aladiina aamanuu minkum waacmiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbudunanii laa yushrikuuna bi shayئa waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum اlfaasiquun ilaahay wuxuu u yaboohay kuwa iimaanka laga hele inaga midka ah camalka suubanna sameeya yacni طariiqu اlciza raaca waddada lagu liibaanayana raaca kama warramayno ilaahay ma odhanin kuway rumeeye iska seexda kor baan yeelayaa ilaahay ma odhanin nuumuu walaa tastayqaduu miyuu ciraaqigii nin gabyaayo oo ciraaqiya wuxuu ka yaabay muslimku maanta siduu yahay waa hore maasuu gabay tiriya uu leeyahay seexdoo ha toosina inta hurduun baa guulaysata buu yidhi yacni wuxuu sawirayaa xaalkeennu famaa faaza ilaa nuwamu buu yidhi ma guulaystaan kuwa hurda mooyaane idan nin hurdaa ma guulaysto ninkii seexdaa siciid dibi dhalay bay soomaalidu tidhaahdaa laakiin ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala kuwa iimaan laga helaya camal saalixa kuwa caqiido iyo inay mabaadi'da ku dhaqmaan oo raacaan laga helo kuwa ilaahay wuxuu u ballan qaaday layastakhlifannahum fi lard laam iyo nuunu tawkiid baa ilaahay ku adkeeyey kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulka khilaafadiisa waa u dhiibayaa sidii kuwii iyaga ka horreeyaba loogu dhiibay yacni jidka nolosha haddaad raacdo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idin noolaynayaa baa la leeyahy walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum ilaahay subxaanahu wa tacaala waa makansiinaya oo gacantuu u gelinaya diintoodu raalli uga noqday maanta waxaa laga yaabaa dunida qaybo badanoo ka mid ah muslim baan ahay dadku inay kaba xishoodaan oo isla baa lagu dila haddaad afka ka tidhaahdo muslim baan ahay baa lagu yidhahdo waa terrorist ninkan iyo islaam buu sheegtay laakiin ilaahay wuxuu u ballan qaaday hadday jidkan raacaan walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum ilaahay waa makansiinayaa diintoodu raalli uga noqday walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna baqahooda dabadeed ilaahay wuxuu ugu bedelayaa nabadgelyo haddii caalamulislaami maanta siyaasiyiintiisa iyo waxgaradkiisa iyo aqoonyahankiisa in badani ka midi ay baqayaan oo isleeyihin haddaa waxaad tidhaahdaan arma gaaladii soo duushaa armaa laydin qabsadaa armaa lagu xidhaa armaa lagaa hor yimaadaa oo nin waliba maslaxadiisa ka daydayey qoladan raalligelintooda ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala rabbi walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna laakiin waxani maxay ku xidhan yihin yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a baa ilaah yidhi waa inay aniga ay caabudaan waanay cidna igu shariig yeelin xaaladdaa hadday gaadhaan waxaan waa helayaa waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum lfaasiquun ciddii gaalowdaana waa faasiq baa ilaahay leeyay gargaarka alle heli maayo aayaad kale ilaahay wuxuu leeyahy isagoo rabo rabbi inuu inoo tilmaamo dunidan inuu isagu ka taliyo yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim qaar baa raba baa ilaahay leeyahay ilaahay ifkiisa inay afkooda ku damiyaan ka warran ninkaas idhahda cadceedda afuufoo demi waa nin waalanun soo ma aha waayo cadceeddu inay xoog weyn tahay oo aan bini aadamku u taa kelin baad rumaysanta markaa nina inaanu afkiisa ku damin karin rabu الsamaawaati walardina nuurkiisa cidna af kuma damin karto ilaahay baa wuxuu leeyahay yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim
ويأبى الله إلا أن يتم نوره إلهينا واديدي تاسي إنه نور كيسا ما يسترمو يعني دين تاني إلهي وحب الله قاضي إلى قيام الساعة مركز دتك الله لين دون وقت كله وين يدو شوقي دونته سأوجدنا أنا صورة قلا هين إن الدمية ولو كره الكافرون بإلهي حتى كوا قالت هبن عباداني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون في سورة التوبة هي في سورة الصف بإلهي وكت البامية إلهي وك الرسول صادري وهنونك صادري الدين حقا ليظهره على الدين كله دين أردن نكوكري له ومبشرات مركه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا في سورة الفتح يعني سدح آيات القرآن مسألة سكسا أرورت وحلنا هاي أحاديث تصا أرورت ويتربضنت ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه كتاب كيسان لدى سلسلة الأحاديث الصحيحة وحكم بلا وضع أحاديث مبشرات أول حديث يكوي يلبا يصدح وحكم بلا وضع أحاديث المسلمين تدير قالين يسيب بشارة النبي محمد وقدت جاي أيكم بلا وضع أو كم دي حديثك نبي قولي عليه الصلاة والسلام إمام مسلم صاصاري إن الله الزوالي إلهي وحوئي سمي أوئي أروري زوالي الأرض بالقردن بالليسو كوبي فرأيت مشارقها ومغاربها كأنما دي تي في لقد تصيوكالي بالقردن أي الليسو أروري النبي قولي عليه الصلاة والسلام وحن أركي بريقيد يقل بيت كذبا وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها أمت ديدنا ملكيدي ما ملكيدي وحو قاري دونا انت اللي تسيب النبي عليه الصلاة والسلام يعني وحصاص صعتو النبي قلت المامية وقت عالم كوردن إسلام كتاليو عالم كوردن إسلام كتاليو دادك بردبا وحي وفكريان ورمو مسلم كو حوق بدن دونا عينكا وردادك قلوب تودين لفرطابا كفي عن نقول كودا لفرطو دادك قلوب تودين لفرطو أياك قرح بدن محي in dhulkooda la furto isagoo qofku dhulkiisa degan baa diinta la gaarsiin karaa islaamnimada uu qaadan karaa dad muslima iyo dawlad islaamiya dad khayr jecel ay noqon karaan saawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay wa u'tita al-kanzayn al-ahmar wal-abyad waqtiga madiina lagu hortaagnaa dabeetana wuxuu leeyahay waxa la siiyay kanziga daartii casayd iyo daartii cadaydba labadii dawladood ee dunida markaa ka talin jiray midna guriga cad buu lahaa midna guriga cas buu lahaa تيم كبا راشيا كنا جوري عصبولها مريكان كنا جوري عدبولها بيرشيا يروم نسكولا قال أنا جوري عدبيلها قال أنا جوري عصبيلها يبتدي النبي حلي عليه الصلاة والسلام وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض هديت هاي ذهب يفضنا ولا يسيبون نبوة المامية وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا نبي عليه الصلاة والسلام حلي إلهي وحن ويديست وما الضيدة إن أنا إلهي سبحانه وتعالى كو اتحام أبار لما يسه يعدو كحوق بطه ودمان تود قبصده إلهينا سبحانه وتعالى وحوت المام هدان وحكم كيغا لما سوعليو ummadaada abaar dhammaysa ku qaban maayo cadow intuu ka xoog bato dhammaantood qabtana ku qaban maayo laakiin dunidoo dhamma xataa hadday isugu timaado ma jebin karayaan laakiin iyagaa badhba badhka kala qabsan doonaan oo balaayadoodu saasay ku dhici doontaa
caalam islaam waddan kastoo la gumaysto qaar kaloo muslimuun baa dee gaalada dabada kaga jira iyagunbaa jabkooda ka mas-uula sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo laakiin axaadiis badan baa waxay tilmaamaysaa xadiidka ibnu xibbaan layabluganna hada alamru maa balaga alleyla waannahaar diintani inay gaadhi doonto inta waa ka baryo habeenna ka dumo dunidoo dhan dee habeen waa gaadhaa maalinina waa gaadhaa diintani way gaadhaysaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam guri dunida ka jira ma jiro ilaa diintani way geli doontaa ama iyadoo bicizi casiizin bay ku geli ama bidulli daliilin islaamnimada xoog badan bay ku geli oo iyana dulaysan yihiin ama dee dadku iyagaa islaamka qaadan ama waa la qabsan waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada u sheegay buu yidhi labada magaalo in la furanayuu sheegay waa rooma magaalada caasimadda talyaaniga iyo qustantiin waa caasimaddan hadda turkiga laga maamulo laakiin markaa labadaba midna waxay ahayd markaska diineed ee reer galbeedka midna waxay ahayd markaska siyaasadeed ee reer galbeedka qustantiin waxaa gacanta ku hayaa dowla albizantiya oo ah dowladdii romanskee weyneyd wixii ka sii hadhay ta kalena waa meeshuu fatikaanku deganaayo diin ahaan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa labadaba muslimka gacantooday soo geli doonaan dabeetana waxay weydiiyeen saxaabigii sheegaya cabdillaahi bnu camar ibnu alcaas labada teebaa la horfuran doonaa sanduuq yaroo uu meel dhigtay buu yidhi sanduuqa ii keena waa loo keeno wuu furay dabeetana qoraal buu ka soo saaray markaasuu qoraalkii akhriyo wuxuu leeyahay annagoo nebiga la fadhina calayhi salaatu wasalaam oo xadiidka ka qoraynaa ayaa nebiga su-aashan la weydiiyey labada magaalo teebaa la horfuranayaa dabeetana nebigu wuxuu nagu yidhi qustantiin baa la horfuranayaa ama madiinatu hiraql tuftaxu awala magaalada herakles ninkii la odhan jiray magaaladiisaa la horfuranayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtiguu sheegaya wakhtigaasay ahayd laakiin goormaa la furtay waxaa la furtay 800 sannadood ku dhowaad nebi maxamed gadaashi nebigu uu sii sheego waa la furanayaa buu laakiin wakhtiguma sheegin dadka saxaabadii waa isku dayday waa u suurtoobi weyday abu ayuub alansaari iyo dee magaalada dacalkeedu ku aasan yihi waa u suurtoobi weyday ciidamo muslimiin oo ka dambeeyey boqor waliba nebigu wuu ammaanay nimanka halkaa furan doona waa isku dayay may suurtogelin qarnigii 15aad ee miilaadiga dabayaaqadiisii sbain markay dumaysay xagga kalena qustantiniya la furanayay spain 1492 meelahaasay danta aakhir madiina laga soo saaray muslimiinta xagga kalena wakhtigaa wakhti ku beegan bay furteen oo markii dowladda muslimiinta ee dhinaca galbeed soo dumaysay dowladdii muslimiinta ee dhinaca bari baa sii xoogaysanayso sii socotay malaha hijriyadu 800 iyo dheeraad inay ahayd baan filayaa wakhtigaasi haddii taa la furtay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dabadii 800 sano kadib weliba culammadu xadiiska saxiix muslimna waxay tilmaamayaan mar labaadna in qustantiniya la furan doono laakiin marka labaad takbiir in lagu furan doono aan xabadba lagu ridi doonin laa ilaaha illa allah iyo allahu akbar in lagu furan doono malaha un dee waa markana cilmaaniyiintan iyo beliya baaskana dib u qabsadeen dee un malaha dad takbiirsanay uma dib uga qabsan doonaan filaya roomase weli lama furan roomi weli waxay ku jirtaa maxay gacantii reer galbeedka laakiin xadiidkani wuxuu sheegaya in roomina in islaamku gaadhi doono islaami doonto roomana inay noqon doonto maxay magaalo muslim buu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam waxuu nebigu xadiid kale ku tilmaamaya nebinimadu intii alla doonaabay joogi doontaa dee nebi maxamed nebi ka dambaynaya ma jirin intii uu nebigu noolaa unbay joogaysa dabeetana ilaahay baa rafcin doona waxaa iman doonta khilaafa ama maamul calaa minhaaji nubuwa dariiqii nebi maxamed haysta ayaa iman doona isna intii alla doonaa buu joogi doonaa dabeetana waa la rafcin doonaa buu nebigu yidhi waxaa ku xigi doona buu nebigu yidhi boqorro adag
mulkan caadan isna intii alla qadaraa buu joogi doonaa waa boqorradii muslimiinta ee waxna qaldayay waxna saxayay kadib baa ilaahay rafcin doonaa waxa ku xigi doona buu nabigu yidhi mulkan jabariya boqorro dictatora dee mala waa inna maanta joogtay iyo wixii la nooca kuwo dadka nafta isugu keenaya ayaa ku xigi doona buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyana mudday joogi doonaan buu nabigu yidhi uma yarfacuha ilaahay baa rafcin doona kuwaana haddana uma takunu khilaafatun calaa minhaaji nubuwa waxaa soo noqon doonta buu nabigu leeyahay khilaafo mabda'ii nebi maxamed ku socota idan waa inoo dhiman tahay markaa mar dambe waa soo noqonaysaa uma sakat nebigu halkaa markuu marinayo aamusay maxaa ka dambayn doona ilaahay baa og wixii ka dambayn doona nebigu calayhi salaatu wasalaam kama warramin intay iyadu sii socon doontaa kama warramin waxaan uga dan leeyahay muslimku wuu soo noqon doonaa waa hubanti hadday dhashaa tahay wuu soo noqon oo 19th century ama 19 something 20 centurieska bilowgeedii qarnigii 20aad bilowgeedii ingiriisku ilaa 50 milyan oo dhadhow buu ahaa 60 milyan waxaa cagaynaya masarna 5 milyan bay ahayd maanta masar waa 100 milyan ingiriiskuna weli waa 60kii alqarni dabadeed waa 60kii masarna waxay maraysaa intaa mowqaca istaraatiijiga ee ah almiyaahi daafi'a biyaha diiran ee dunida oo dhami gacantoodu ku jira mawaaridda khaamka ah ee hadday dhallinyaro tahay iyo hadday energy tahay iyo hadday dhulbeereed tahayba gacantoodu ku jira taariikhdaasi la yaqaane macruufkaa way leeyihiin kam iyo kayfba ama quantity iyo qualityba waa dad soo socda waxaan leenahay muslimku wuu soo noqonayaa waana laa maxaala inuu dib u soo noqdo laakiin in la soo noqdo waxaa ka horeeya waa dhab faama zabadu fayadhabu jufaa'an waama maa yanfacu nnaas fayamkuthu fi lardi baa ilaahay yidhi xoorka iyo daad xoortu waa tegaya waxa dadka anfacayana waa hadhaya in alarda lilahi yuuriuha ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulka isagaa leh oo dhaxal siinaya addoomihiisa cidduu doono wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramay yahuud oo la gumaystay oo lagu xukumayba inaanay rag dhalin oo sidaa loo galay ayaa ilaahay yidhi waxaan doonay inaan iyaga dhulka makansiiyo fircoon iyo intiisiiba inta ilaahay halaagay baa maxay yahuud dowladnimadeeda ay timi waxaan leenahay islaamku wuu soo noqonayaa laakiin wuu soo noqonayaa macnaheedu maaha intaynu iska fadhfadhino oo isku akhrino niyaddan idhaahno qur-aankay ku taalla iyo xadiidkay ku taalla ayaa islaamku iska soo noqonayaa oo dunida gaaladuna waa dumi doontaa insha allahu inana waa ka boodi doonaa warkaasi waxba kama jiraan waxa wax ka jiraan haddii la shaqeeyo unbaa wax soo noqonaya intaynu hurudnaa wakhtigu wuu sii dheeraan intaynu baraarugsanee wax qabanaynana wakhtigu wuu soo koobmi iyadoo ilaahay qadartiisa ay ku xidhantay saxaabadu maxay lahaayeen markay nebiga la shaqaynayeen lain qacadnaa wannabiyu yacmalu ladaaka mina alcamalu lmudallalu haddaynu fadhiisanno buu yidhaahdeen isagoo nebi moxamed shaqaynayo kaasi waa shaqo baadila oo aynu wax yacnii camal lunsano aynu samaynay weeyaan ilaahay nasrigiisaa noo imanaya dabeetana waa fadhfadhiyaynaa waxba kama jiraan ilaahay wuxuu leeyay waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana jidka iyaga kuwa u dadaala aayaddu waa maki qabla aljihaad bay soo degtay waaladiina jaahaduu fiina
kuwa juhdigooda iyo dadaalkooda ku bixiya ilaahay dartii ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala dariiqa saxa baan ku hanuuninaynaa waaladiina ihtadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum kuwa hanuuna hanuun baan u kordhinayaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala cadow baa jira iyo dad baa islaamnimada ka soo horjeeda oo ma nebi meel cidlaa yimi baa jiray ambiyadoo dhammi ilaahay wuxuu ku tilmaamaya qur-aanka wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin baa ilahay yidhi nebi kasta kuwa mujrimiin oo col u abaano ayaa la joogay baa ilaahay tilmaamaya hadday cidi meel cidlaa ka soo guulaysanayso dee ambiyada ka soo guulaysan lahayd noloshu isriixaasay walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacd noloshu isriixaasay ku socotay sida awgeed wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa shayaaiina alinsi waاljini yuuxii bacdahum ilaa bacdin zukrufa alqowli guruura walitasqaa ilayhi afidat aladiin ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa ambiyada inay ka soo hor jeedeen kuwo col u ah shaydaamada insiga iyo jinka baa ilaahay yidhi jin tiro badan baa ka soo hor jeeday nebiyada kuwa insiyo yaro shayaadiin oo kalaa ka soo hor jeeday oo mabaadi'da qaldan faafinayay waxaan leenahay markaa mabda'ii raggiisu qaadaana wuu guulaystaa rabbina wuxuu yidhi waa u gargaarayaa mabda'ii dadkiisu seexdaana waa seexdaa cadowga xoog badnidiisa waxba kuma xidhna laa yagurannaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad baa ilaahay yay idin baqa gelinin yaa ku kadsoomina gaalada dunida rogroga isku rogrogayaan iyo waxoogaaga ku haystaan waa mataac qaliil baa ilaahay yidhi laakiin quustuna ma jirto huwa aladii yunazilu اlgayha min bacdi maa qanatuu wayanshuru raxmatah ilaahay isagaa roobka iyo naxariista soo dejiya dadku markuu quusto kadib sidaa awgeed waxaan leenahay kow cadam ilya'as quusta joojiya nebi moxamed iyadoo maka la joogo oo laga xoog batay oo saxaabadiisii hortiisa lagu tumayo waxba uu qaban kari waayey ayuu saxaabi ka mid oo nafti haysaa u yimi maasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiyo maad ilaahay noo baridin alaa tadcu lana maad ilaahay guul noo weydiisi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay taariikhda bini aadamku say u socoto idinka dadkii idinka horreeyey qaar baa intay ilaah iyo rusushiisa rumeeyeen la qabtay buu nebigu yidhi oo inta god lagu riday mishaar halka laga saaray oo laba loo kala jeexay ilaahay baan ku dhaartay diintan ilaahay waa u hiilin doonaa oo way guulaysan doontaa buu nebigu yidhi makaa lagu hortaagayay markaasuu yidhi sanca ilaa xadaramowt ayaa ay socon doonaan iyagoo qofku inuu adhiga yeyga iyo waraabaa ka ceshada mooyaane cidna aanu ka baqaynin nimanka maka ka bixi kari le ee lagu tumayo ayuu nebigu wuxuu u sheegayaa diintan intay guulaysato inay sanci iyo xadaramowt dhex socon doonaan iyagoo aan cidna ka baqaynin xoolahooda inay yeyga ka ceshadaan mooyaane walaakinakum qowmun tastacjiluun buu nebigu yidhi waxaase tihiin dad degdegaya degdeg waa meel iska tuur adaan waxba dhisan iminkaan haf iyo haf ka siinaya waa meel iska tuur taasi waxba samayn mayso laakiin waxay u baahan tahay dadku inay tooda dhistaan saxaabadii jabtay lama odhanin khaalid baa xariif ahaayo intuu xagga dambe idinka maray idin jebiyey ee waxaa lagu yidhi qul huwa min cindi anfusikum talaxumadu idinka idinka timi baa ilaahay mushkiladdu idinka idinka timi weligeed baa cadow iyo dad ishaya dunida waa jireen dad la yidhi cadowgiina la xaaqi doonaayo idinku marka la mariyo idinkoo rooraya soo galana ma jirto dunidu tadaafucaas bay abadkeedba ku jirtay laakiin dadkii dhisma soomaalida maanta joogtaa waxay idhaahdaan gaalaa laynagu itixaamay gaala caynkanoo etoobiya kan samaysayoo kenya kan samayso qolo joogtaa maxaa la yidhaahdaa xeebtaa xamar baa waddankeenna maamusho caynkanoo waar dee ninkii tashan kari waayo waa loo taliyaa de dunidu waa caynkaa carruurtu ma tashan karto waa loo taliyaa bini aadamka wixii tashan kari waayo waa loo taliyaa cidu talin kartaa u timaada mashkiladdu waa innaga ee maaha iyagu waa nin dantiisa raacanaya lama yidhaahdo niyow axmaq baa tahay maxaad dantaada u daba gashay
tiisuu ilaashanaya waa nin rageed oo tiisa ilaashanaya cidda doqmo ahi waa iyo waa innaga adaa taagan tuulada nagu xigta ha nagu soo durkina waa ka soo adhigiinu uu soo dhaafay halkii uu daaqi jiray sanadihii hore ayaa taagantay inaad duni kale wax ka qabato iyo dad kale inaad wax la qabsato daaye tuulaba tan ku xigtay adhiga ka ilaashanaysaa way leedahay halkaa reerkiinu ma degi jirine waa ka soo tallowdeen xuduuddii oo goormaad reeg iska celin marka ciddaad iskaba ilaalinaysa hadduu walaalkaa yahay iyo kii aad dad bay isugu dhoweydeen yaad iska celin kartaa markaa soomaaliya cidima jebinay iyadaa isjebisay xaqiiqadu waa kaa muslim cidima jebinay isagaa isjebiyey isagu markuu istumay ayaa la bakti wareemay markay dadka nool ahaayeen dunida dad bay ka ahaayeen tirsan oo aan cidina soo hunguraynin haddii la hungureeyana wax iska dhiciya waa dhici jirtay dagaal in maalin laga badiyo laakiin iyana berritay ka badin jireen dadku saasuu isu riixriixayay laakiin waanu iska fadhaynaa dunidayna soo gaadha oo dawlad noo sameeya oo duniday kaalay oo dad naga dhiga wax nin weyni ku hadlaba maaha yani wax nin weyni ku hadlo intuu meel istaago ma aha adduunow soo cararo wax noo qabta soomaalida arkaysa markay soo leeyahay carab iga daawa nimanka halkaa ina dhigay oo iyaba meel kula mid ay jiifaane maxay ku dhigaan kuma dhaafaane kaa taageersanaysaa kuma dhaamo haddaad adigu wax dhaanta ada ahayd inaad keento waxaan markaa uga dan leeyahay ayuha alaxiba qur-aankii oo cusub oo aan waxba iska bedelin baa ina dhex yaalla sunnadii nebiga oo la hufay oo aan waxba iska bedelin baa dhexdeenna taalla taariikhdii dunida mid muslim iyo mid gaaleed boo la hayo ayaa taaliya tajaaribtii bini aadamka taariikh bay muslimiintu leeyihiin assumuud fi alxaalaati asacba qoraayo badan oo reer galbeeda waxay leeyihiin dadkani waa laabud inay soo noqdaan laakiin dib baa loo dhigi karaa rag waa ishayaaye waa la joojin karaa inagu waxaan leenahay ilaahay wuxuu yidhi isagoo calaa lisaani nabiyullaahi ibraahim calaa lisaani nabiyullaahi yacquub innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun ilaahay naxariistiisa kama quustaan dadka gaaloobay mooyaane muslimku quusba ma yaqaano cumar almukhtaar baa laga hayaa kelmada naxnu laa nastaslim ya cumar almukhtaar kii talyaaniga ay isku hayeen libiya ayaa wuxuu yidhi annagu isma dhiibno ama waanu guulaysanaa ama waanu dhimannaa buu yidhi yani wuxuu tilmaamayaa noloshu isdhiibka inaanay aqoonin haddaba alislaamu laa maxaalata qaadim waa soo socda wa fardun calayna inaynu camal samayno qul icmaluu wasayara allahu camalakum warasuuluhu walmu'minuun waxaa layna yidhi war camal sameeya shaqo qabta alle iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintuba way arki doonaan waxaa qabataane laakiin laynama odhan qul naamuu wasayansurukum allahu meella kuma taallo seexda ilaahay baa idin guulaynaya meel ay ku qorantay ma jirto marka kelmaddaydu waxay ku kooban tahay laba qodob oo qudha mid waxa weeyaan diintani way soo noqonaysaa haddii aqoonta bini aadam lagu eegana waa faafaysa waa diinta ugu faafis badan maanta ee dunida ka jirta waana soo noqon doontaa biidni illaahi tacaala laakiin waxa isweydiinta leh adigu safka ma ku biiraysaa kicinaya soo celinaya mise daawadayaasha qaybta maxaa la yidhaahdaa daawadayaasha mustamiiciina alkiraam good audience-kaad ka mid noqon doontaa dadka daawanaya dunida sida wax uga dhacayaan ma kuwaasaad ka mid tahay mise kuwa diintooda iyo dadnimadooda iyo dalkooda ayaad ka mid noqonaysaa idan adigu ilaahay waxba kaagama baahna laakiin adaa lagu itixaamaya lagu eegaya waana lagu sheegay haddaad jidka fiican qaadana in lagu guulayn doono kalluunsan haddaad qaadana in lagu baadiyayn doono aan waxba heli doonin marka waxaan ku koobayaa masaladan wax badan baynu ka odhan karnaa laakiin hadalka badani waxba ma taro waxay ku kooban tahay diintani way soo noqonaysaaye adigu kii
وحكو درسنا يمتها يمسمته. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.